سيدا معاد حسن يوسف وسدح سنة جير ku xanuunsan muddo 3 sano ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii uu ku dhacay xanuun dhanka neerfaha ah taas oo keentay in maalinta ka dambaysa uu sii kordho xanuunkiisa kadib markii dhaqaatiirta ku sugan Gaalkacyo ay sheegeen in aan wax looga qaban karin Gaalkacyo sida ay sheegtay Ubax Maxamed Samatar oo ah hooyada dhashay wiilkan yar iyadoo sidoo kale xustay inaysan awood dhaqaale u lahayn inay geeyaan meel ka baxsan magaalada Gaalkacyo haday ahaan lahayd dalka gudihiisa iyo dibadiisa Ubax Maxamed Samatar oo ah hooyada dhashay Mucaad Xasan Yuusuf oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaa ugu horeyn inooga warantay xaaladda wiilkeeda iyo duruufaha ay ku nool yihiin kuwaas oo laga dheehan karo inay u baahan tahay garab istaaga ilmaha yarka ayaa igu xanuunsan ilmahaas yarkaas 3 sano ayuu igu xanuunsan yahay waxa weeyaan wax dalka looga qaban karo lama arkaa la yiri dhaqaatiir Soomaaliya joogto waxa ay wada sheegtay in ilmaha dalka wax looga qaban karin saddexdii inay madaxa iska saaran tahay waxaan codsanayaa muslimiinta meel ay joogaan inay ilmaha igu caawiyaan anigu awood aan ilmaha dhakhtar ku geysto ma aan lihiid qof dan yar aan ahay ilmo 7 ilmood oo isaga ku jira baan korsadaa meerad yar baan u shidan jiray meeradii waan iska dabiyay waxba uma qabsan kara hadda isaga baan hayaa awoodna isaga aan macnaha aan dhaafsan ahayntiisa aan hayna ma aan hayo dhakhtar ma geyn karo dalka kuma geyn karo dibadda kuma geyn karo muslimka waxaan ka codsanayaa meel ay joogaan dal iyo dibadba inay ilmaha yarka igu caawiyaan magaciisa waxa la Mucaad Xasan Yuusuf geysan ma geynin Muqdisho ma geynin tabar aan ku geystana ma aan lihi dalka intaan Gaalkacyo gudaheeda meel aan hayn ma aan geynin kombiyuutarada madaxa laga saarna waxay dhan 3 xidid baa saaran daawada dalka aan Gaalkacyo gudaheeda ka siiyana wuu ku jiray ayadoo ku xanuustay marka waxaan ka codsanayaa muslimiinta dhamaantood meel ay joogaan inay ilmaha yarka igu caawiyaan aniga xaaladaydu dhinac baa ay dhacsan oo shaqo qabsan karta ma anhi qof macnaha wax xirfad weyn qabsan karta ma ahi hadda waxa badan ah ilmaha yarka baan hayaa dhaqaatiirtu waxa isku raacday ilmihi maadaama aadan dhakhtar dalka gudihiisa waxba looga qaban karin isaga waxaad haysaa xanaanadiisa ilaali sidii macnaha uu ilmahaas uu san dayac u arkeen marka isaga baan xanaaneeyaa wax kalena ma qabto waxba uma qaban karo koonbacana uma gadan kara xataa 7 ilmood oo soo ku jiraan hayaa wax aan u qaban kara iyagiiba laftooda xataa iskooladii meel walba laga soo ceershay awlaana u xamaal jiray haddana gur fariisi baana oo kiisoo xanuunsan baan hayaa marka muslimiinta waxaan ka codsanayaa meel ay joogaan inay soo caawiyaan dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay soo caawiso ayaan ka codsanayaa meel dalka iyo dibadda ummadda dhamaanteed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiso lambarka laga soo xiriiri karo waa 752 aniga magacayga Ubax Maxamed Samatar baa leeyahay Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo